han غولاد aan waqaano ama maxamuud bin Usmaan iyo kooxdiisu ayagoo al-jamaaca al-muslima is yiraahdaan al-jamaaca al-muslima isu yaqaanaan oo kutubtooda ku qortaan iyo buugagtooda Soomaalida jamaaca takfiir iyo waxyaabo ku sheegaan nin walba asagu magac buu sheegtaa dadkuna magaca asaga ka muuqday falkay ku arkaan bay ku dhajiyaan marka ama ha saxnaada ama khaldanaado culays ba malaha laakiin magaca ayaga lagu dhajiyay inuu saxan yahay baa noo muuqata qoliyahaasi ka muqaddima ahaan aban kaftabe annaga reedaru xadiisa iyo intina la midka sida jihaadiinto kale qoliyahaas way nagu rafaadaan meel ay noo qaadan bay ilaahay si ayna dhahaan iyo meel ayna mariyaan iyo qaab ay noo maamulaan bay ku rafaadsan maxaa yeelay ninkii shirka ku dhacay ilaahay qeyrkii caabuda waa mushrik kaafir aan leenahay waxaan isku haynaa marka muxuu noqday waa hal mas'alo ay ka been sheegaan marka la dooday been ay ku wareegistaan waa ruux islaam muujistay wax gaalnimana annagu aanan ku ogeyn maxaa u xuguma annagu waxaan yiri ruuxii islaam muujista ee shahaadateynka laga helo iyo shacairta islaamka wax gaalnimana aanan ku ogeyn haddaan doon aan tuhunsanan inuu gaal yahay agtanada waa ka muslim agtanada waa ka muslim ayagu waxay leeyihiin maya ilaa aan annagu imtixaano oo laga soxo 7 qodob oo shuruudu laa ilaaha illa allah la yidhaahdo ama 6 qodob laga soxo muslim ma ah muslim ninku uu xukumana wuxuu ka waliyay shay mushrikiin kamana bari noqonin warka wad faanteen baan u maray halkaas qodob baan isku haynaa saadarteed markaan masalada ka niqaashno been bay noo tiiriyaan haddaan dib idin celiyo 2013 bilowgiisii ayaanu muslimiin daris la ah nima aan markaas macrifo ahayn hadda waxa magaciisa sheegi maayo oo marka anugu aan moodayay inuu muslimiinta kale ka mid yahay laakiin ayaga ka tirsana xagga hoose dib bay ka cadaan doontaa oon ka ogaanay yaa wuxuu yiri wadaadow sheekhi qoliyahan adugu riixday takfiirka tiraada sheekhu u ahay Nairobi u joogay ina Sheekh Cabdiraxmaan Fasiix la yiraahdo way oo ogaadeena Reer Cabdillah uu joogaa marka qosol loo baahna waa anska nasab way ayaa codsanaya inaad kulantaan waran mashquulsanahay nimankaas 2000 iyo kowdii ilaa 2005 baan isriixaynay waa isku daalay khayr beelayaal way xaq ma doonayaan iga daabaa asagu ku cusbaayo 2007 meelahaas Nairobi iyo xogta muusan haynin tusaalooyin baan u sheegay waxaan ku iri waaba waxaan noo yimid nin hadda mareen ku maqoon saaxiibanahay oo ayaga ku aafaysan oo ku fidnaysan baan noo yimid asagii dartii baan ayaga dooda la galay ninka waa ka soo reebtay nin fiican buu noqday wadaad abgaalo waa cayslo ahaa hadda waa maqanya marag ku jira waxba hadda intaas dhaafi maayo asagoo hadda dooy maqlo waa qosdi doona baan malaynaya almuhim doodo baan nimanka la galay waagay maktabad daaru xadiis ku taalay 6 street qoliyahaas khayr beelayaal way iga daabaa waa 2003 meelaha ahayd ya haddana wadaad reesli ah iyo islaanti ka doofsadeen gabadh quman oo jeclaa oo qiimo badnayd iyo intay quraan ruwa ku akhriyeen yey ka aafiyeen ninkii calaacala ayaa masaajidka sigiiska ku soo dhacay shawmal bay u tageen waxa la yidhi dhibkaas aan haystay hana laga qabto sheekha ii yeeray ariga xasaara iyo Sheekh Abdullah Ibrahim iyo aniga yuwadku noo yeeray wuxuu yiri bal nimankan la fariisto la dooda islaantan ninka u soo dhiciya Sheekh Abdullah Ibrahim uu joogaa waan falaya waa la weydiin karaa Sheekh Maxamed waa joogaa dib balaha adugu 3 fadhi oo balanay noo gooyeen guri baan lagu ballamiyay way noo gooyeen meel barsa haddana la geeyay way noo gooyeen haddana waxaan ku ballanay fadhi kale 3 fadhi markay noo gooyeen yani wartan bala qaadatay nimankana lama soo fadhiisan hayaane inaga daay waagi dambayada waxay ani ila dooda
هذا كله دود مين بالعنبة طاي أنا ورهولها ومن كحرقنا هذا وقاعدين هاي وحاديالي رجل كتوف صدي نوكي رجل كتوف صدي نوكي واقف عند أنت وقفتك أنت وقفت وي أضو وكصبر وادم بين لما كون يا أفرتي تلاوين كان يدين شيء وحسك شيكاء معها لما كون يا أفرتي هذانا هذا iyo warxuma iyo wardayn waaye waagaas Sheekh Maxamuud Shibli ayaa ku cusbaa dalka ariga Sheekh Maxamuud Shibli iyo niman xero nala socday yaa la fadhiisanay maktabada Daarul Hadiis waagu oran doona Cabdiraxmaan Fasiixan oran doona weeye xadiidku haduu daahirkiisu ka hor imanayo sida anagu aragnay Quraanka waanu tuurayna mana qaadanayno walow kana fi saxiixay ولو كان في صحيح البخاري لمن كان مركا ما دام عن مراحل بان لصو مراي إني حقدون هين إيه عضاتي عامنا يهين وحانقو أنصدينا فرح واكا قادو لابو كون يصدح حدومك مركا لسوق قاري أيانين كاسو مركا وداد هورو شهيدو قيمة بدنا حرتي سأهان جري مركا أنا أنو أرمود هيبا إنو توسين لكن هوش باشا كقرصر هيا ayaa iga hadhi waayay waxaan bal u keen igu yeedh ninkaad sheegayso gurigayga igu yimid Cabdiraxmaan Fasiix waxaan ku idhi 10 sano inuu ismoognaay 2013 iyo 3 maxaa u dhaxeeya waa 10 sano 10 ka sano ismoogna meelaad ku dambeyseen iyo meelaad ku beeqaanteen iyo waxaad tihiin iyo maxaa isbedelay ilaa madhabkiinu madhab meel fadhiya ma ahe uu habeen dhaxaay habeenba meel buu dagaay meesha hadda aad degantiin insaan u ogaado waxaad qabtaan usuushiina iyo soo qorbaan uu joogaa ninkii ii keena wala weydiin karaa hadduu inkarana hadda waaban ku naqanaa culays ma laha waa yahay wuu iga tegey jahliga nimankaay wuu iga tegey 3 bari kadib buu igu soo noqday ninkii garwadeenka ahaa wuxuu wadaadkii wuxuu leeyahay wadaadku wuxuu igu codsaday ma fahmin waxaan ma afjaynis baan kula hadlay misaaf Soomaali warninka waxaan ku iri adu ma fahantaan waxaan u sheegay anigu waan fahmay buu maxaan ka codsaday waxaad ka codsatay buu muddaynu ismoognaay 10 sano hadda waxaad aaminsantiin ummadda ku khilaafsantiin dadka ku takfiirisaan oo kooban iyo soo qor-aan kala niqaashi ilaa marka ninka xog ka hesho ayaad la xaajootaa Soomaa xogtaada ay si laano waaga hore 2001 iyo 3 iyo waxay labadii iyo waxay oran jireen annagu muslimiin baan nahay adduunkana dad muslimiina joogan ogeyn dadkana islaamnimo iyo gaalnimada u xukumayna waaga asaas ay ahayd tawquf tabayun bay taagnaayeen waaga hore kadib warkooda way cadaysteen nimanna waxay leeyihiin ayaga aad uga warqaba siyaasad bay ka tahay mooyeen weligood wadku gaal ay u ahaayeen dad tira wadaadka soo socday casay quruxsan maxaad ka aaminsan tahay ilaahay baa garanaya waaga dhihi jiray muslim buu noqon kara gaal buu noqon kara ninka sujuud ku taale maya waa ka istaagayna waaga warkaas ay suuqa la meeri jireen dadku kula doodi jireen aniguna xataa dhowr waan ku wada hadal in maxamed aadan la oran jiray iyo baday sheekh mal qaraabaha ayano asaguna islaam duubsatay oo koorad weynaan jiray oo magaciisa hadda muxusto ba sheegi lahaayay marka oo dhib badnaa marka qoliyahaas waaga sidaas ay oran jireen laakiin kutubtoodii waaga ka hor ay qoraan waxa ku qoran waxa weeye dadkoo dhan waa gaalo waxaan ayaga ka ahay marka maadaama isbedel jiro waxaan ku iri bal meesha xogtu idin maraysakee mar hadaad faahantay wadaadka ku noqo saa ugu sheeg bar warkan soo gaabi uu ku noqday wadaadkii wuxuu leeyahay anagu aad u fahmine wadaadku asaga usuushan ka doodina soo qor bal u fiirsaada nin asagu inta wax codsanay gudaba taagnaa oo waxaad ka rabta tartiib u sheegtay oo haddana wareegaysanay waa gartiyo Cabdiraxmaan waana qanaanin aqoon lama aha marka arkay inuu wareegaysanayaan anu u qoray usuushi usul kufr wa takfir ahlu sunnuhu ka duulaan iyo fuqahadu iyo ahlu qibluhu badankood waxaan ahlu bidع waaweyn ahayn oo dhanbaan u qoray 12 asal mise 8 asal meelahaas inuu habar u qoro wax intaan maxad ka qabtaan
maalinka hore ila fadhiyay wuxuu yiri waxaana su'aal weydiiyay waa ka soo kala tagay maxaad aniga ugu soo maagtay baa wuxuu yiri waan wadaadihii Soomaaliyeed oo dhan baan daba galay oo daraaso ku sameeynay waxaan ogaanay inaad tahay wadaadka aan iskugu dhownahay فاتفانتين مارو wadaadkan iskugu dhownaana taan u maginaabaya usaasaha khayr Allah ka dhigay inaan isku dhownaay inaan kala duwan way kala bixi doontaay usuusha aad aaminsantiin iyo soo qora saasay ku timi markay waxba dhaqaajin waay ana u qoray usuushi markaan u qoray wadaadkii marka wuxuu igu yiri see iskugu dhowna su'aal baan weydiin waxaan iskugu dhownahay buuri dadka ilaahay غيرkii caabud waa takfiirisaa buuri مشرعينta iyo baarlamaaniyiinta ilaahay xaqiisa ku haysta hoosad ka xariiqdaa buuri ku ahlu qaabuurka abootooyinka laga kari waayay ee Sheekh Cabdiqaadir Lugooyana waad feermaysaa buuri hal qodob kaliya baynu isku haynaa waxaan isku haynaa dadkaas aad takfiirisay mushrikiinta gaalada ah kuwa ka bari noqon waayay in la gaalaysiin isku haynaa kuwa ka bari noqon waayay in la gaalaysiin inaad fahanteen baan u malay qaabkaas wax u dhigay waayahay baa qodobka aan ka doodno marka qolyahan hadda waaniga horaanku iri annaguna waa ka adagnahay aniga iyo reedar xadiisi jihaadiyo waa ka adagnahay ayaguna laba kooxood bay ka adag yihiin اعتصام iyo jadidiye ka adag yihiin waad fahanteen baan u malay wadaadka hadda wacaysle hadda idin sheegahay yogaagaas wuxuu igu yiri aw xasaar wuxuu yiri anigu suufiyo waan ka adkaay buur anigu takfiir baa iga adag buur waagu marka iyaga aan kala soo celinaynay waan hayo wuxuu sheegay maxaa jiraa wuxuu yiri suufiyo ilaahay غيرkii bay caabudaay waxaan oga bilaabay mushrikiin gaalaati kadib maanta dhow waxay ka doodahayaan warmaya muslimiin baa nabi ka doodahayaan kuwan takfiirka inkaar bay qabaan waxay iga bilaabay buur gaal baa tahay maanta dhow waxaan ka doodii war muslim baan iga daayay fadfaadii bay la tahay cawaad bad u qoslaysaa shaadka tartiibaash marka aafo weeye waa aafo marka waxaa dhig kooxdan hadda aad ka adagtihiin aan ka doodna isku kaayakeen waxa mushkilada ah waxa weeye shakhsiya jadaliya iska noqday ariga afkaartayda iyo qoliyaha taageersan iyo qoliyahan taageersanahayba qolihii takfiirka hadda waxay leeyihiin dadka ma takfiirso waxa tahay murji اعتصامي جدا maxay leeyihiin khariji takfiiri aata waad faanteen baan u malay marka waa hawl iska dhib badan oo Soomaali hawshu iska guracan tahay kadib maqaalka aan u qoray buu ka soo jawaabay jawaab kale aan u celiyay waxaan idhi cilada aad ku takfiirinaysaan qoliyaha اعتصامka jadiidiyada iyo wixii la halmaala iyo cadeeya waxay dheen xaqiiqad tawxiid ma isan fahmin shirkina ma yaqaanaan waxaan u qoray inay shirki yaqaanaan waxa u daliil ah ilaahay oo ma shariig yeelaan oo hadaysan aqoon qubuurtii caabud lahaayeen ilaahay qeyrkii bay bari lahaayeen tawxiidka inay yaqaanaan waa iyagaas sharxayay saad kitabta u akhridan u akhrinay waxay yiraahdeen ma isan ka bari noqonin mushrikiinta mushrikiin way ka bari noqdeen yahuudi nasaari iyo buudiye majuus iyo siikh waa mushrikiin wayna ka bari noqdeen koox islaan sheeganaysa oo islaan muujisanaysa xaqana mutalabisiin bu kufri ah ayay ku khaldameen cudurdaarkoode kala niqaasha nimanku dawaabit muxuu ahaa at-takfir iyo mawaanic at-takfir iyo shuruud at-takfir hala niqaash dabtiga marka shuruud iyo mawaanic mas'ala ijtihaadiya miswa mas'ala min asli diin oo ninku ku bariiqda aayar feesha la goynay warbaasha sida u dhiga say u socotay soosaas kuma noogay show ninka ila niqaash haya waraqa kolba ii soo qorahaya ninka Cabdiraxmaan Fasiix ogaadeen ma ahe oo wadaadka ma jeerteen anu moogi marka warba ma hayo waraqan qora carabi yar toosan iyo wax isku yar aadan laakiin xoog wax ka yahay
warinta cabdiraxmaan ma qori kare tolo iyo qorayaan islaax kuwa marka meelahan ugu jira almaqdisi meelaha ugu jiraan moodin la dadiyaan wadaadkii qardha fadhiyay yaa show maqaalka iyo hadalkayga lagu diraa email kadib uu ka soo jawaabaa asaga la soo daabacaa waa la keenaa yaana ku qoran cabdiraxmaan baa soo jawaabay way cabdiraxmaan fasiix say u socotay maqaalkii u dambeeyay yaan hubsaday asagu inuu san qorin seen ku hubsaday waxaa ka soo baxday inuu leeyahay anta tudaafic can almushrikiin walaa tukafiru almushrikiin waa wadaadan warkayga hayn waa kuma wadaadkii maxamuud saleebaan wey wadaadkii ogaadeen reer subeerna wuxuu ilahaa aduu waad fiicantoo nimankan waad u dhammaysaye in yaroo ah ii sheeg dadka aan ka beri noqon gaalada aan ka wada hadalno afkii baa isdhaafay halka iyadoo taagan tahay baa qolyahan Kenya meel jeel ay geeyeen muddan ku maqnaa markaan soo baxay waxaan ku uri ninkii garwadeenka waxaad yeelaysaa doodii waxba ka kharibane afka anagu waa isdhaafaya niman wada socdo manihiine ninkii aad ii keentay maalinkii igu soo celi maxaa jira buur wadaadka soo marka muunfaan waxaari waa la kala hadlahayaa waxaan isku ogeyn dhan buu ka baxay anu hadda wuxuu ileeyahay mushrikiin baa difaacaysaa igu yeed si walba intaan yeelay wuu diiday inuu yimaado ma diidaha iska dhig baa waraaqaha asaga u yeed kafal baan u doodayna waraaqahan beenbeenta intaad iska joojiso u yeed kafal aan u doodna makhraatina ka noqo duuba codkana lagu kari waa dhaweydoo 2015 ayay waraaqihintay muqaddimo u samaysteen oo waxay doonaan ku darsadeen oo ay habeeyeen iyo waxay dhamaan munadara bayna Sheekh Xasan oo bayna Sheekh Maxamed Nur Cusmaan bal ka dhacday oo meelaha lagu soo tuuray waadfaanteen baan u malay qolyo noocaasa oo iska been badan way maxaan ku geenay hadalka ma awoodaan qodobkan isku hayn inay ka niqaashaan inaan ka adagnaan idin sheegaya markay arkaan in la saaranta waxay dhii maya anta la tukafir warta ka soo tagnay taaka soo tagnayo qolyaabani idinkaaba takfiirin oo khawaarij niman baaba 25 wadaad fayl galiyay inuu xasan khaarij takfiiri yahay nafta kaga baxda oo lagu kala dhintay tan iska daaye dadkan islaamka muujisan haya dal iyo dibad ba dhooban adduunka shantiisa qaarado ama toddobada qaar waxa tiraadaba qaab loo qaybiyaba dhooban ee islaamka muujisan haya wax kufri oo xaqiiqo adigu idinku aydan ku ogeyn maxaa u xukuma waxa uu xukuma ayagu waa hore dadka takfiiriyeen waa gaalo asalkoodu dadkaas u dhanba nimay islaamnimo ku hubsadaan ayagu ka saxaan ma yaqtooda kulli waa ka gaalo dadku annagu waxaan leenahay war dadku nin walbo islaamnimo muujista oo shacaa'irta islaamka iyo tawxiidka uu nooga muuqdo hadduu doono gaalnimo beerka ugu jirto midaana ogeyn baa ku jiro gurigiisa sanam ha u yaala hadduu rabo masaajidka safka hore ay ula tukado hadhowna kaniisada ha galaan war oo mahay muxuu yahay مسلم dadkaasi muslim bay noo yihiin in gooni ah tawaa'if gooni ah ururo gooni oo gaalnimo ku ognahay mooyeen bulshooyinta muslimiinta dunida dhooban muslimiin bay noo yihiin kama niqaash karaan marka waa inay ku xawilaan meel laga meeshay ku fiishisan jireen ii sheeg اعتسامي جديد ay ku ridi jireen bay kula aadahay wararkaas waan ka soo tagay waxaad yeeli tan ka hadal marka halkaas baynu taagnayn waxa idin soo sheegay warkaan soo gaabiye taasi qisay ahayd iskana ogaada beenta iyo barabagandada la wasal malaha waligii maxamed nur cusmaan lama doodin fadhina nama dhaxmarin ismaana arag iima imanin anoo imanin aadin ku daro wax yaroon ka tagay hadalka hore waa dhaxdeera ayaa wadaada ka yimaadeen xaqooda masaajidkana yimaadeen wadaada ayaga ka tirsanaan jiray waxay dhahan waad ridowday murtadiin baati wadaada ayaga kamida ninka ka soo baxay baa wuxuu yiri waxaad yeelaysaa inti maalinkan kula jooga aan aaminsanahay ma inaan bilaal iyo alamin ku tukaday baan ku gaaloobay haaba yiraahdeen waxa lagu ridooba ayaga inaad ka baxdo waxaan lagu soo galaa islaamka in ayaga soo gashay li'annahum al-jamaa'a al-muslima kutubtu si dhan bay ku qoran tahay
jamaaca almuslimiin markay daahirtay 32 sano ka hor buu ku leeyahay kitaabkiisii xarakatu shabaab calaa mafriq الطariiq soo ma ahay xukm man qaala laa ilaha ku sheegay buwaagtiisoo dhan buu ku sheegaya jamaaca muslima iyagoo inay yihiin asaaskii unugii islaamka annaga aweye ninka nagu soo biira waa muslim ninkii naga baxana waa gaal sida jamaacadii nebi maxamed ninka ku soo biira muxuu ahaa muslim ka baxana muxuu yahay gaal halkaas baashu wadaadku taaganta wadaadihii markii ay ka soo tageen oo murankii batay waxaan ku iri way fadhiyaan hadda rag kamid ah fadhiya way isixi karaan haddaan wax qaldo markay muranka bato waxaan ku iri marka hadda qoorbaan isku rabada waa niman been badane khawaarijtoora runta sheegi jirtayna ma ahee ii keena aan wada xaajoonni waxay dhan waayahay yaan la duubin waayahay baadhi wadaadka keligii ha yimaado warmaya xer baa yaa raacisaydan ii warjeefin ila waa lis warjeefi karaaye xerta xataa marka dambe waan ka tanaasulayo wadaadihii labada ahaa ee ka yimid ayaa idhi idinku i raaca saan ballan ooga sugay way diideen wadaadihii nin ka mida waxaan ku idhi kuwan iska daa hadda ka hor baan ku khasaaray wadaadkoodu u weynaa tigirkiisa anaa la baxahaya halaykanaa wada doodde niman aan fahansanaynoo meel laga qabta aqooninoo boocbooca ayaa nimanka ku aafeeyey wadaadka tigirkiisa waa iga go-aan baag anaa la bixi intuu joogana anaa kharashka qaba igu yeedh tigidkana u dir amminkan way taagan tahay waa ataxaddaa inay yeelaan ma yeeli karaan been weeye waxaa la wadoo dhan barabagaando waxba waagi dambe waxay soo yidhaahdeen inkastoo hadda ay laga yaaba inay wadaadka warka sheega ku dilaan aman ka daaye waxaa weeye say warku u socotay inay ila fadhiistaanna way diideen doodna way diideen wadaadkooda inay kanaan way diideen waa maxay caamada iyo dhallinyarada iyo haweenka iyo maxasta yay miijin yaqaanaan nimanku waa kawaanlayaal nin wax u kala baxsan yahay wuu iska garan waxay khaldahayaan dhibkoodu marka nimanku intaa aan ku daayo haddii aan gebagabada wax ka gaadhan wuxuu maadana yar tuuri doonaa